kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kastoo joogtaan kuna soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya. Qodobada aad wararkeena ku daawan doontaan maanta waxaa ka mid noqon doona wararkii ugu dambeeyay xuska maalinta ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, baqdin ay qabeen mucaaradka oo meesha ka baxday, iyo madaxweyne Farmaajo oo wacdaro cajiib dhigay xilli uu soo bandhigay in uu awood u leeyahay in uu dalka xoog kula wareego. fariin xoog badan oo madaxweyne Farmaajo diray ayaan idin soo gudbin doonaa. madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo weerar culus ku qaaday dawladda Kenya soona bandhigay ballanqaad ay u sameysay si uu uga tanaasulo kiiskii badda ee ay maxkamadda qaramada midoobay u xukmisay Soomaaliya. maxaa ka jira in madaxweyne Farmaajo loo ballanqaaday arrin muhiim u ah dib u doorashadiisa? kala shaki xoog leh oo soo kala dhex galay ra'iisul wasaaraha dalka Maxamed Xuseen Roble iyo madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Madoobe. haddaba miyuu Axmed Madoobe ka tanaasulayaa kuraasta Gado mar haddii uu ka baxayo garabka ra'iisul wasaare Roble? qodobada kale ee wararkeena aad ku daawan doontaanna waxaa ka mid ah madaxweyne Farmaajo fariin lama filaan ku noqotay ka helay mas'uulka ugu sarreeya hay'adda qaramada midoobay, iyo madaxweyne Farmaajo oo qaramada midoobay la wadaagay xaaladda doorashada dalka iyo caqabadda haysata, iyo wararkii ugu dambeeyay walaac xoog leh oo laga muujinayo qabsoomidda munaasabadda dhaarinta xildhibaanada ra'iisul wasaare Roble iyo guddiga fiid oo wacd ku maray in la qaban doono xafladda dhaarinta iyo fariin culus oo ay u direen xildhibaanada ee ku laabtay maamuladooda. qodobadaas iyo kuwo kale ayaad ku daawan doontaan wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya. fadlan haddii aad ku cusub tahay boggeenan ee Bandhiga TV, waxaanu ka dalbanaynaa in aad subscribe saarato. haddii aad inaga daawanayso bogga ee Facebook aan ku leenahayna like inoo saar si ay kugu soo dhacaan muuqaallo iyo warbixinno xiiso leh oo aan halkan soo gelin doono hadda kadib haddii eebbaweena uu qadaro. waa Talaado, taariikhdu waxay ku beegan tahay 12 bisha afraad ee Abriil sanadda 2022. aynu ku bilowno wararkeena. magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya maanta waxaa lagu qabtay munaasabadda xuska maalinta ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. ugu horreyntii waxaa meesha ka baxday baqdin ay qabeen mucaaradka, taasi oo ku saabsaneyd in madaxweyne Farmaajo uu ku dhawaaqo go'aan uga sii dari kara xaaladda dalka hadda uu ku jiro ee aadka u cakiran. munaasabadan oo lagu qabtay wasaaradda gaashaandhigga ee magaalada Muqdisho ayaa waxaa ka soo qayb galay mas'uulka ugu sarreeya Soomaaliya oo ah madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. waxaa sidoo kale halkaasi ku sugnaa gudoomiyihii hore ee golaha shacabka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan, taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, taliyayaasha ciidamada xoogga dalka, ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Cali Geedi, iyo sidoo kale xubno aan badnayn oo ka tirsan wasaaradda markaasi gaashaandhigga, iyo sidoo kale xubno kale oo iyaguna ka socday wasiirada xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya oo uu qayb ka ahaa wasiirka maaliyadda ee Soomaaliya. munaasabadan ayaana waxaa ka soo qayb galin ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble iyo sidoo kale wasiirka gaashaandhigga oo labaduba muhiim u ahaa inay munaasabadani ka soo qayb galaan. haddaba madaxweyne Farmaajo ayaa halkaasi ku soo bandhigay wacdaro cajiib ah oo ku saabsan awoodda uu u leeyahay in madaxweyne Farmaajo uu la wareego xukunka dalka si ay markaa ku dheehan tahay awood. arrintan ayaa waxa ay markaasi caddaysay markii madaxweyne Farmaajo uu markaa maanta soo bandhigay dhoolatus weyn oo ku saabsan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo sida markaasi uu haysto taageerada ugu badan ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed. haddaba waxaynu soo koobaynaa warbixin ku saabsan khudbaddii madaxweyne Farmaajo uu jeediyey oo dhinacyo badan taabanaysay. sidoo kale madaxweyne Farmaajo waxa uu kashifay in dawladda Kenya ay xiriir la soo sameysay intii lagu guda jiray kiiskii badda, isla markaana ay kala hadashay in uu ka tanaasulo kiiska iyada oo kala shaqeynaysa dib u doorashadiisa, balse madaxweynuhu waxa uu sheegay in uu markaa arrintaasi iska diiday, isla markaana uu wadaniyanimada iyo sidoo kale in Soomaaliya ay ku weyn tahay uu kaga tanaasulay. madaxweyne Farmaajo khudbadiisii maanta waxa ay u badneed mid markaasi uu kaga hadlayay wadaniyadda iyo sidoo kale qabiilka, isaga oo si markaasi sarbeeb ah u weerarayay siyaasiyiinta mucaaradka ah oo ku tilmaamayay inay yihiin kuwa markaasi qabyaaladda u janjeera. madaxweyne Farmaajo khudbadiisa waxa uu markaasi kaga hadlay arrimo ay ka mid ahaayeen dib u dhiska ciidamada xoogga dalka iyo dagaalka Al-Shabaab, isagoo ku faanay in dawladdiisu ay xoog gelisay tayada ciidanka iyo inay helaan mushaaraadkooda. madaxweynaha ayaa sidoo kale ku dheeraaday ka hadalka wadaniyadda iyo qabiilka, waxa uuna tilmaamay in nidaamkiisu bilaabay wadaniyad dhab ah sida uu hadalka markaasi u dhigay. haddaba markii la doortay waxaan ku imid nidaam la yiraahdo isbedel doon, ma ahayn inaan shakhsi bedelo ama qof bedelo. isbedel doonku waxa uu ahaa inaan dib u milicsano wixii aabayaasheen ay ku shaqeeyeen oo ay markaasi ku keeneen xorriyad,
ay ku keeneen ciidan xoog leh, taas oo ah in aan dib ugu noqdo ama aan kala doorto wixii 30 sano ina dhibaateeyay qabaa'ilka oo siyaasadeena qayb ka ayuu yiri madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. sidoo kale waxa uu yiri madaxweynuhu isbedelkeenu ma ahayn shakhsi bedel, laakiin waxa uu ahaa nidaam bedel, nidaamkaas oo ah in aan markaa bilowno wadaniyada oo si dhab ah oo daacad ah ay naga tahay. dhinaca kale waxa uu soo hadal qaaday dagaalkii dowladiisu ay la gashay Kenya. waxa uu sheegay in markaasi arrin weyn oo dowladda Kenya u soo bandhigtay isaga uu iska diiday, isla markaana uu ka doorbiday in uu ilaaliyo qiyamka Soomaaliya. waxa uu markaasi soo hadal qaaday kiiska badda ee ay Soomaaliya ka gaartay guusha. madaxweyne Farmaajo ayaana xusay in culays siyaasadeed iyo mid dhaqaale la saaray, xitaa loo sheegay ama lagu wargeliyay in lagala shaqeynayo dib u doorashadiisa haddii uu ka laabto dacwadda badda, balse waxa uu tilmaamay in arrintaasi uu dhagaha ka furaystay, isla markaana uu iska diiday, sidoo kalena uu ku adkaystay go'aanka iyo in markaasi dacwadda maxkamaddu ay xugmiso. si aan badda ugu noqdo waxa lay saaray culays dhaqaale iyo mid siyaasadeed oo xitaa ah in meelo kale la ii soo marsiiyay oo ay tahay in lagala shaqeynayo electionka haddii aan markaasi ka laabto kiiskan badda, balse waxa uu sheegay arrintaas in uu ku gacan seeray oo uu iska diiday. si kastaba madaxweyne Farmaajo ayaa khudbadiisa maanta waxa uu ku muujiyay in uu yahay nin wadani ah oo uu mar kale doonayo in ololaha doorashada uu ku galo markaasi nidaamkii wadaniyada iyo sidoo kale dal jacaylka. waa hagaag wararkeena kale haddii aynu fiirino, ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble iyo madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Madoobe ayaa la soo sheegaya in markaa kala shaki uu soo kala dhex galay. madaxweynaha Jubbaland oo markaasi maalmo ka hor magaalada Kismaayo ka hadlay waxa uu sheegay in doorashada gobolka Gado iyadoo aan la qaban aan la dhaarin karin xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya. ra-iisul wasaaruhu waxa uu doonayaa in 14 bishan uu dhaariyo xildhibaanada cusub ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Soomaaliya, arrintaasi oo muujisay in xurguf hoose ay ka dhex bilaabatay ra-iisul wasaaraha iyo weliba sidoo kale madaxweynaha maamulka Jubbaland. haddii Axmed Madoobe uu ka baxo garabka ra-iisul wasaare Roble iyo guddiga FID, waxa uu markaasi noqon doonaa mid u gacan gala villa Soomaaliya ama markaasi ka tanaasula arrimaha ku saabsan in doorasho lagu qabto meel ka baxsan magaalada Garbaharey, maadaama villa Soomaaliya ay doonayso in doorashada lagu qabto magaalada Garbaharey ee gobolkaasi Gado. dhinaca kalena madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa waxa uu kulan dhinaca internetka ah la yeeshay mas-uulka ugu sarreeya hay-adda qaramada midoobay. xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa waxa uu madaxweynuhu markaasi kala hadlay arrimo ku saabsan xaaladda waddanka iyo sidoo kale weerarada sii kordhaya oo kaga imaanaya dalka shabaab iyo markaasi abaaraha ee waddanka ka jira. Antonio Guterres iyo madaxweyne Farmaajo ayaa dhinaca kale ka wada hadlay doorashada Soomaaliya ee gabagabada ku dhow, iyadoo la filayo in xildhibaanada cusub lagu dhaariyo magaalada Muqdisho 14 bishan Abriil oo ku beegan maalinta markaasi Khamiista ah. wada hadallada uu Antonio Guterres la yeeshay madaxweyne Farmaajo ayaa ku soo aaday xilli ay jirtay cabsi xoogan oo mucaaradku ay markaa ka muujiyeen in madaxweyne Farmaajo isku dayayo in uu mar kale carqaladeeyo hanaanka doorashada ama sameeyo afgambi maalinta ciidanka xoogga oo maanta ku beegneed, balse arrintaas ay noqotay mid fashilantay. midowga murashaxiinta ayaa qoraal ay soo saareen oo weliba isdaba joog ah waxa ay kaga digayeen qorshahaas iyo in markaasi tallaabo uu madaxweyne Farmaajo u qaadi karo isku day afgambi, balse madaxweynuhu waxa uu maanta galay olo doorasho iyo in uu ku faano ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed qaybahooda kala duwan. gabagabada ayaanu isla soo gaarnay. ugu dambeyntii guddiga FID iyo ra-iisul wasaare Roble ayaa ku celcelinaya in aysan jirin wax baaqasha oo markaa ku saabsan munaasabadda dhaarinta xildhibaanada. wararkii ugu dambeeyay waxa ay sheegayaan inaysan suurtagal ahayn in 14 bishan la qabto munaasabadda dhaarinta, maadaama xildhibaano fara badan ay dib ugu laabteen deegaanadooda. qoraal ka soo baxay guddiga FID ayaa waxaa lagu sheegay in dhaarinta ay dhacayso maalinta Khamiista ah ee soo socota, iyadoo lagu wargeliyay dhammaan xubnaha baarlamaanka arrintaasi. waxaa sidoo kale loo sheegay in ay teendada afisyooni soo xaadiraan maalinta Khamiista ugu dambeyn 4 saac oo subaxnimo. guddiga ayaa ugu baaqay xildhibaanada labada gole ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya ee dib ugu laabtay deegaanadii laga soo doortay in ay markaasi dib ugu soo laabtaan magaalada Muqdisho si ay markaa kaga qayb galaan munaasabadda dhaarinta xildhibaanada. waxaa weli jira khilaaf u dhexeeya Koonfur Galbeed iyo sidoo kale guddiga FID iyo ra-iisul wasaaraha, waxaana jirta dadaallo arrintaasi laga dhex waday, balse aanan weli wax natiijo ah laga helin.
lama garanayo sida ay u dhici doonto munaasabadan iyada oo shaki weyn uu markaasi hareeyay in guddiga fiid iyo ra'iisul wasaare Roble oo iyagu mas'uul ka ah doorashada inay markaasi qaban karaan munaasabada dhaarinta xildhibaanada cusub ee baarlamaanka Soomaaliya. gudaantaas ayaan kusoo gabagabeynaya warkii aad kala socoteen bandhiga TV warkan war la mid ah intaanu mar kale dib ugu kulmi doono sidaas iyo nabad gali.